hooyadan ayaa guriga soo dhigtay kaamiro si ay ula socoto gabadheeda. Kadib markii ay shido kaamirada, waxay aragtay arrin la yaab leh. Si aan u bilowno muuqaalkan oo dhammaystiran, soo dhawaada asxaabta ku xiran hoyga dhacdooyinka. Muuqaalka like saara, siina share gareeya si asxaab badan u gaaro. Mahadsanidin dhammaantiin. Gabadhan waxay habeen kasta gurigeeda imaataa xilli dambe. Subax kastana waxaa hurdada ka kiciya hooyadeed si aysan shaqada uga daahin. Sidoo kale waxay u diyaarisaa quraac. Laakiin gabadha ma siiso jaanis ay hooyadeed kula cuntayso, oo wayba ka faantaa inay hooyadeed la cuntayso. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in gabadhan markay shaqada joogto tahay qof shakhsiyad wanaagsan oo la dhaqanka dadka aad ugu wanaagsan, laakiin markay guriga joogto hooyadeed uma wanaagsana oo waxay ula dhaqantaa si arxan daro ah. Sidoo kale markay shaqada ka soo laabato, waxay guriga timaadaa hooyadeed oo cunto u diyaarisay oo sugayso inay la cuntayso, laakiin nasiib daro inay la cuntayso iska daaye way aflagaadisaa. Waxaa cajiib ah, gabadhan markuu soo waco qof ka mid ah asxaabteeda waxay ula hadashaa si qurux badan. Hooyadeed markay maqasho sida ay asxaabteeda ula hadlayso way murugootaa, maadaama ay mudan tahay in si wanaagsan ayada loola hadlo. Maalin maalmaha ka mid ah, hooyadeed waxay aadaysay isbitaal, waxayna gabadheeda u sheegtay inay dhakhtar aadayso, mar dhowna ka soo laabo doonto. Laakiin sida caadada ahayd, gabadhu ma badanayn hadalkeeda iyo gebi ahaanba xanuunkeeda. Maamada waxay aaday isbitaalka, waxayna guriga ku xirtay kaamiro si ay xaaladda gabadheeda ula socoto. Maamadii iyadoo isbitaalka joogto waxaa u soo dhacday fariin kaga timid kaamirada guriga ku xirnayd. Markii ay furtay, waxay aragtay nin tuug ah oo gurigeeda sii galayo, kaas oo doonayo inuu gabadha dhaco. Waxayna la xiriirtay gabadheeda, laakiin sida caadada ahaydba teelka kama qaban oo way ku dhegaysatay. Ninkii tuugga ahaa waxa uu gudaha u galay guriga. Gabadhii markay tuugga aragtay waxay isku xirtay qol. Sidoo kale waxay la xiriirtay booliska. Maamadii waxay u soo degdegtay guriga si ay gabadheeda ugu tagto, laakiin nasiib daro maamadii waxay gashay shil maadaama ay walwalsanayd. Gabadhii markay boolisku imaadeen waxay u sheegtay inaysan garanayn ninka tuugga ahaa wejigiisa, laakiin booliska markay kaamirada guriga ku xirnayd ay baareen waxay arkeen arrin la yaab leh oo ah in hooyada dhashay gabadhan ay subax kastoo xilli hore soo kacdo, guriga hagaajiso, kadibna quraac samayso oo ay miiska cuntada ku soo diyaariso, kadibna ay gabadheeda ka soo kiciso si ay u wada cunteeyaan. Laakiin gabadhan waa mid caasiyad ah oo waxay hooyadeed ula dhaqantaa si xun. Gabadhii markay daawatay muuqaalkii kaamirada duubtay waxay bilowday ooyin. Waxay soo qaadatay telefoonkeeda si ay hooyadeed ula xiriirto, laakiin waxay ogaatay in hooyadeed isbitaal ku jirto oo ay shil gashay. Waxay u carartay isbitaalka. Markii ay tagtay isbitaalka, waxay la kulantay hooyadeed oo xaalad xun ku jirta. Kadib dhakhaatiirta isbitaalka ayaa gabadhii u keenay telefoonkii hooyadeed. Markii ay furtay telefoonkii, waxay ogaatay in hooyadeed ay xaaladeeda la socotay xitaa iyadoo guriga ka maqan, jacayl ay u qabto awgiis. Intaas kadib gabadhii waxay bilowday inay hooyadeed baari u noqoto oo ay si wanaagsan ula dhaqanto, waxayna ka shalaysay qaabkii darnaa ay ula dhaqmi jirtay hooyadeed. Sidaan waxaan ka baran karnaa in hooyooyinkeena iyo aabayaasheena ay yihiin dadka keliya ee sida dhabta ah inoo jecel. Haddaba aan wanaajino, baari aan u noqono oo aan waqti la qaadano, waayo ayaga ayaa mudan in waqti lala qaato. Daawade, adiga sida u aragtaa muuqaalkan? Fadlan nala wadaag aragtidaada ku aadan qisadan. Muuqaalka si share gareeso asxaab badan u gaaro. Mahadsanidin dhammaantiin.